jooji isticmaalka WhatsApp-ka sirahagana ka ilaasho. WhatsApp-ku imika laga bilaabo ma ku ilaalin doonaa sirahaga ku khaaska ah. Asalaamu calaykum, soo dhawaada saaxiibayaal. Magacaygu waa Nadra Siciid. Shirkadda Facebook waxay iibsatay 2014 WhatsApp-ka, taasoo ay ku iibsatay lacag dadku madaxa ay wada qabsadeen oo gaadhaysa 20 bilyan. Ma la socotaa se ma ka warqabtaa shuruudaha ay soo kordhisay shirkadda WhatsApp-ku? February 8 marka la gaadho shuruudaha cusub ee ay soo kordhisay waxaa ka mid ah in waxyaabaha ku khaaska ah lala wadaagi doono shirkadda Facebook maadaama ay iminka iska leedahay WhatsApp-ka. Haddaba waxaa isweydiin mudan shuruudan cusub iyo update-kan cusub ma noqdeen mid dadku ay wada aqbaleen? Waa maya. Shirkadda Facebook waa ay ku khasaartay update-kan cusub waana ku fashilantay sababtoo ah waxay weydeen malaayiin qof oo isticmaali jiray WhatsApp-ka. Dhammaanba dadku waxa ay isku raaceen inay ka guuraan WhatsApp-ka oo ay u guuraan dhankaas iyo Telegram iyo Signal, taas oo dabar jabin weyn ku noqotay iyo la yaab oo aanay filanaynin. Dadkuna qofba qofka kale uu ku lahaa jooji isticmaalka WhatsApp-ka. Waxaad isweydiinaysaa waa maxay aniga siraha badan oo WhatsApp-ku iga helaya amba xogta uu aniga iga helayo? Anaa kuu sheegaya xogta uu kaa helayo WhatsApp-ku, taas oo welibana uu la wadaagayo Facebook-ga. qof kastaana kole Facebook uu isticmaalaa. Facebook sidan ognahay markiisa hore ammaan mu ahayn, laakiin dadku waxay iman jireen dhanka WhatsApp-ka iyagoo sirahooda iyo wax kasta kaga wada hadli jiray. Haddaba adigoo WhatsApp-ka isticmaalaya daaqad sidan ah ma kuu soo baxday? Ma agree ayaa tiri mise not now? Agree haddii aad tiri shuruudaha cusub ee WhatsApp-ka sidaas ayaad ku aqbashay, welibana sidaas ayay kugu fileen adiga. Waxaad isweydiinaysaa waa maxay sirta uu aniga iga helayaa iyo welibana shuruudaha cusub maxay yihiin? Sirta WhatsApp-ka uu kaa helayo waxaa ka mid ah phone book-gaaga waxa ku jira iyo macluumaadkaaga oo dhan inuu la sheergaraynayo Facebook-ga, sida phone number-kaaga inuu ogaado number-kaaga, location-kaaga goobta aad ku sugan tahay, IP address-kaaga, nambarada kugu jira mobilkaaga. Ma aragtaa mararka qaar qof WhatsApp-ka aad saaxiib ku ahaydeen inaad ku aragtid Facebook-ga welibana isagoo ku leh ku darso? Sababta miyaad garanaysaa? Sababtu waxa ay tahay xiriirka ka dhexeeya Facebook iyo WhatsApp welibana hal nin uu wada leeyahay labada shirkadoodba. Ma ogtahay iminka in la doonayo macluumaadkaaga in lagu kaydiyo Facebook-ga sirahaagana la ogaado? Markii hore WhatsApp-ku wuxuu ahaa meel ammaan ah, laakiin iminka maaha. Ma ogtahay shirkadda Facebook in ay wax basaasto, sida oo kalena dadka wanted-ka ah amba dadka la doonayo loo adeegsado Facebook-ga macluumaadkooda iyo waxyaabahooda shakhsi ahaana bartaa laga ogaado? Haddaba ma noqon doontaa dadka si isticmaali doona WhatsApp-ka kuna sii adkaysan doona inay sii joogaan meeshaas ammaan darada ka soo socoto malaayiin qofna ay ka hayaameen waqti hore oo ay ka tegeen? Update-kooda iyo shuruudahoodii cusbaa WhatsApp-ka ay ku leeyihiin nala sheergaree waxyaabahaga ku khaaska ah anigoo la wadaagi doono Facebook-ga. Ma noqotay mid haddaba dabar jabin ku noqotay iyaga iyo welibana qoomamo aad iyo aad u fara badan ma u keentay? Haa, dabcan waxay ku waayeen intaasoo lacaga, sida oo kale waxay ku waayeen malaayiin qof oo run ahaantii isticmaali jiray WhatsApp-ka, kuwaas oo u wada dareeray dhankaas iyo Telegram iyo welibana Signal. Ninkani waa Elon Musk, waana maalqabeenka adduunka ugu taajirsan. Bartiisa Twitter-ka wuxuu ku soo qoray waa 2 kelmadood oo keliya taas oo saameyn weyn ku yeelatay WhatsApp-ka. Malaayiin qof oo WhatsApp-ka isticmaali jirayna kuwaas oo ka cararay WhatsApp-kii isticmaalina application-kan yar ee daciifka ah oo welibana awood u haynin intaasoo qof. Ninkan Elon Musk waa nin dad badan ay ku daydaan, dad badan oo waxa jira jecel inay sidiisoo kale noqdaan. Taas awgeed ayaa keenaysa malaayiin qof inay WhatsApp-ka ka cararaan. Haddaba WhatsApp ma ka qoomamaysay dhibaatadan iyo khasaarahan weyn ee welibana baaxadda lee soo gaadhay welibana ay ku waayeen malaayiin qof? Haa, way ka xumaatay, waana ka qoomamaysay 100%. welibana hoosu dhac aad u weyn ayaa ku yimid oo aanay marnaba filanaynin arrinkan oo kale inuu ku dhici doono. Haddaba update-kii cusbaayo WhatsApp-ka ay lahaayeen shuruudahayaga cusub aqbal amba
iska soco oo WhatsApp-ka oo dhan iska saar halkuu ku dambeeyey. Shirkaddii WhatsApp-ka waxaa ku timi dharbaaxo kulul oo aanay marnaba filanaynin inay tan oo kale ku dhici doonto noloshooda. Welibana malaayiin qof oo uu hogaaminayo Elon Musk ayaa ka hayaamay kana cararay WhatsApp-ka, kuwaasoon doonaynin ogolayna marnaba sirahooda iyo waxyaabahooda u khaaska ah in lala wadaago, taas oo welibana Facebooka lala sii sheergaraynayo. Wax yar aan su'aal ku weydiiyo, ma ka mid noqon doontaa dadka WhatsApp-ka ka cararay kuwaas oo u guuray Telegram iyo applicationo kale, mise waad sii joogi doontaa? Haddii ay daaqad sidan oo kale kuu soo baxday, maad aqbashay mise waad diiday? Bal nala wadaag fikirkaaga adigoo commentiga noogu soo qoraya. Haddaba abkan yar ee Signal ee uu yiri Elon Musk isticmaala ma yahay mid awood u lahaa inuu qaabilo waxaasoo dada, si ninka iska lahaa ma ku fikirayay marnaba inay tan oo kale ku dhici doonto oo uu heli doono malaayiin lacaga iyo dad aad iyo aad u fara badan? Waa maya. Qalad yar oo aad samaysaa waxay noqon kartaa qof kale faa'iidadiisa. Abkan yari mu ahayn mid caana, manaanu ahayn mid ay ka shaqeeyaan dad fara badan, balse maanta wax ka yar 1 daqiiqo ayaa waxaa ku ogaaday dad fara badan inuu jiro applicationkan, waxaana sidoo kale soo dejistay dad fara badan. Heer wuxuu u gaadhay uu istaago, laakiin update cusub oo lagu sameeyey waqti xaadirkan waxa uu soo dhaweeyey dhammaanba dadkii faraha badnaa ee uu hogaaminayay Elon Musk. Labadii kelmadood ee bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay Elon Musk waa ninkii taajirka ahaaye ayaa abkan yar ninkii iska lahaa amba mulkiilihiina ka dhigay nin caana oo maanta taajir ah laftarkiisu. Qalad aad samaysaa wuxuu noqon karaa qof kale horumarkiisa.